magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay garaad Cabdilaahi Axmed Cabdi Ducaale soo dhaweynta garaadka ayaa ka qayb qaateen cuqaal waxgarad culimo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sidoo kale soo dhaweynta garaadka ayaa ka qayb qaateen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka SSC Khaatumo iyo saraakiisha sare ee ciidamada SSC Khaatumo garaadka ayaa laga hortagay meel qiyaastii 10 kiiloomitir u jirta magaalada Buuhoodle ugu dambeyntii garaadka ayaa loo soo galbiyay garoonka kubadda cagta ee magaalada Buuhoodle garaadka ayaa kumanaan shacabka reer Buuhoodle kala hadlay goobtii lagu garaadkan waayay garaadka goolka furiisaya garaadkan ku wareejiyay inta ka baadi waxaan ku daraya oo halkan ka sheegaya dhammaan cid kasta oo ka soo qayb gashay xafladda qiimaha badan waynu soo dhaweynaynaa gobolka waxaanu leenahay furiiga gobolka Buuhoodle ama gobolka Cayn garaadka haya SSC ee guud garaadka ayaa garaad Cabdilaahi Axmed Cabdi Ducaale ninkii meel kasta meel kala mara isaga u taala waxaan maanta soo dhaweynaynaa garaadkii Buuhoodle garaad Cabdilaahi Axmed Suub soo dhawow waa ku soo dhaweynaynaa waxa weeye si kaliya laabaan ku soo dhaweynaynaa ummadda soo dhaweysay waad aragtaan garaadkii furaahayay Buuhoodle yaa maanta yimi nin walba sida ula soco furaha isaga ka qaado halkan waxaynu ku soo dhaweynaynaa garaad Cabdilaahi Axmed Cabdi Ducaale ayaynu ku soo dhaweynaynaa garaad soo dhawow baanu leenahay waxaa ku soo dhaweynaya qarankii Khaatumo oo laascasool iyo sanaag iyo caynba ka kooban baa ku soo dhaweynaya ciidamadiisii qaranka ku soo dhaweynaya waxaa ku soo dhaweynaya arrimaha bulshada dhammaan arrimaha bulshada oo dhan qalasyadii ciidamada baan mar labaad ku celinaya qalasyadii oo jananadoodii wata ay reer SSC oo dhan baa ku soo dhaweynaya beesha SSC Khaatumo maamulkeedii baa noo yimi waanuna u baahnayn waa soo dhaweynay oo madaxweynihii hogaaminayo annagoo raalli ka ah baanu soo dhaweynay iminkana raalli baanu ka nahay hawsha ay noo wadaan waana dhisanaynaa haddii alla ka dhigo waa dhisanaynaa haddii alla ka dhigo maamulka waxaanu ku taagannahay go'aankii 6 Febraayo ee beelweynta dhulbahante iyo fiqishini iyo gabooye iyo geri ay ku heshiiyeen maamulkaasi gooni yahay oo maamul goboleed yahay waxaanu ayidsanahay inay mataana yihiin maamulka Khaatumo maamul goboleedyada Khaatumo iyo Puntland inay mataana yihiin oo walaala yihiin wixii wax yeelayana aanay suurtagal ahayn inay markay naga hirgalaan waxaanu ugu baaqanaa beelaha aanu dariska nahay nabadgelyo iyo wada noolaansho ayaanu ugu baaqanaa waxaanu soo dhaweynaynaa maamul daadjinta uu hormoodka ka yahay madaxweynaha maamul goboleedka SSC Khaatumo iyo wafdiga ballaaran ee uu hogaaminayo waxaanu ka soo horjeednaa sidii hore u dhici jirtay maamul dhinac ka dhisan ka raran waxaanuna leenahay dhulka la dhigo talada waa la isku soo gaaro عسيسكان كوبريا عافيمات كوار عسيسكان كوبريا عرب دمباب لهو عسيسكان كوبريا عينان كحي أنا هاد نكتبان إدبها لي كرين عقل ذا المسيبان إدبها لي كرين أبرد عاد هيستان إدبها لي كرين أبرد عاد هيستان إدبها لي كرين حدود عاد كبرة طيبان إدبها لي كرين أسيسكان كوبر حتى الشيء إلهي وحانو ويديي أبرد عسلة يا عمل صالحة وحن سلامة يا وكله اسم ماذا SSC
khaatuma meel ay joogaanba saaka u taaganahay soo dhaweynta garaadkana waa garaadka SSC garaadadii hore oo kale la mid yahay waa garaad cusub oo hadda deegaan ku soo biiray annaguna waa soo dhaweynaynaa maamulkiisa soo dhaweynaya deegaankiisa soo dhaweynaya deegaankiisa oo reer SSC soo dhaweynaya cududiisa xooggiisa waxay noqon doonaan reer SSC waxaan ka raali gelinayaa dadka cadceedda xilligan taagan raali baa naga aansan hooyooyinka dhalinyarada ardayda odayaasha cuqaasha dhammaantiin waa raali gelinaynaa xilliga cadceedda taagantihiin waxaan ku soo dhaweynaynaa garaadka madashiisii baan ku soo dhaweynaynaa cuqaasha wixii hadhay hadalkuu hadhay waxaan leenahay garaadku waa ka cudur daatay inaad gurigiisa kula hadashaan baynu dib ugu dhiganaynaa wixii kale garbood ay doonaya inay hadlaan guriga garaadkay ka hadli doonaan haddii alla ka dhigo xilliga halkan la taagay waa xilli cadceeda garaadkana munaasib kuma aha innagoo dhanna munaasib inaguma aha inaynu halkan xilligan taagnaano waxaanu tegaynaa gurigii garaadka halkaasna wixii hadal u baahani ka hadli doonaan garaadkana wixii talo lagu siin doonaa lagu siinayaa wixii hoos lagula xashaqi doonaan lagula xashaqayaa halkan madaxweynihii SSC baa jooga khaatimo cabdulqaadir axmed oo cali firdhiye oo dhammaanteedba mas-uul inaga ah ama garaad ha noqdo ama ilmo yar ha noqdo ama wuxuu doona ha noqdo dhammaanteedba isagaa mas-uul inaga ah waxaan rajaynaynaa in deegaanka maamulka si wacan baa la rabaa in looga hirgeliyo si wacan buu uga socon doonaa mid lagu wada qanacsan yahay baa ka socon doona ugu dambayntiina waxaa halkaa ka hadlay garaad cabdilaahi axmed sulub oo ka warbixiyey safarkan uu maanta ku soo gaaray magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka cayn isagoona u mahad celiyey bulshada ku dhaqan magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka cayn ee sida weyn ugu soo dhoweysay aad iyo aad baan mahad idinka celinayaa dadaalka iyo soo dhoweyntan diiran ee xamaasadda iyo jacaylku ka muuqdaan igu soo dhoweyseen aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa waxaad leedihin raallinimo inaad iga tihiin baadna tusteen anigu raalli baan idinka ah boqolkiiba boqol dadkana wixii la geliyaa ka soo baxa haddii jacayl la istuso jacayl baa soo baxa marka aad baan idinka mahad celinayaa waana waxaad dhaqan u leedihiin waxaa weeye gobonnimada iyo wanaagga iyo hadal wanaagga iyo garasho dheeraanta iyo maxaanku dhahdaa wax kasta oo bini'aadan lagu qiimeeyo waxaad u leedihiin hiddo aad baad u mahadsan tihiin waxaan rabaa oo keliya dee horta barwaaqo iyo khayr baa annaga safarkayagu ahaa laascaanood markaannu ka soo baxnay ilaa meesha la yidhahdo xingaleel meel la yidhaahdo oo waxaan u malaynayaa markaannu soo dhaafnay shurulux ilaa yeyle roob maannaan kala roob xalay daay buu ahaayoo dee biyo badan oo maxaanku dhahdaay daadadle baannu soo aragnay dhulku waa barwaaqo ilaahay waxaan ka rajaynaa barwaaqada iyo nabadgelyadaba ilaahay inu isu keen daro aad iyo aad baan maaragtay ugu soo maanaan arag wax booda xilli wanaagsan baannu nimi intaa kadib waxaan ogahay waan ka warhayaa dagaallada intaan maqnaa dhulkan ka dhacay waannu ka hadalnay ilaahay waxaannu ka baryaynaa wixii ina gaadhay dhimasho ahayd ilaahay inuu naxariisto kuwa inaga dhinta ilaahay u naxariisto dadkii iyo ehelooyinkii ay ka tageen ilaahay inuu samir iyo iimaan ka siiyo waan ilaahay unuga baryaynaa inta dhaawacantay ilaahay inuu boogadhayo waanu ilaahay uga baryaynaa iyagana halkan waxaa jooga dowladdii oo dhan baa isugu timi oo hogaaminaya madaxweynaha iyo dowladdiisaba goliha wasiirada xildhibaanada intaba waanu soo dhoweynaynaa iyo xubnaha kale ee dowladda aad iyo aadna waxaan u salaamayaa si khaasa madaxweynaha waan uga mahad celinaya maanta kow gobolka yimi waxaana leeyahay madaxweyne soo dhowaada dowladda oo dhan nagu raalli baanu ka nahay boqolkiiba boqol dowladdu nidaam waxaan rabnaa dowladdeennan cusub ee curdunka ah inay ka duwanaato maamulada kale inaynu u haweynaanno inaan la shaqayno iyaduna ay shaqadeeda ay qabsato si saxa u qabsato jidka saxda u marto dowladdu ama ragga hogaamiya
siyaasaddu gacantooda ku jirtaa shacabka jacaylkiisu gacantiisa ku jirtaa nacaybkiisuna gacantooda ku jirtaa iyo mucaaradku jid saxa haddii la maro laga leexdo waxyaalihii aynu soo marnay dadka aanan meel kale u hanqal taagin hoos aynu wax loo eego aad ka tagtaan wax la yidhaahdo dhaxal wanaagsan oo idin kara iyo nafaca siyaasiyiintu oo maanta marka shaqadaasi aad ka tagto madaxweynaha ama nin wasiire ama xildhibaane in lagu xusuusto wanaag lagu xusuusto aan habaar iyo hatiyaad iyo siyaasad aada ku soo noqon aanay ku keenin marka aad baan idin salaamayaa aad iyo aad ka mahad celinayaa mar labaad nidaamkiinan iyo qoraxda kulle aad u adkaysataan boqolkiiba